munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay sanad guuradii 37 ee ka soo wareegtay aasaaska ururka ONLF 15 August 1984 oo ku beegan markii dhidibada loo taagay isla markaana la aasaasay ayaa ka dhacday magaalada Nairobi. Munaasabadan oo lagu qabtay madasha shirarka ee Saacali Muslim Club waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa jamhadda, madax kala duwan oo ugu horeeyay xildhibaanka laga soo doortay Kamakunji Yusuf Xasan, xildhibaanka laga soo doortay Wajeer South Maxamed Umar, xildhibaanka laga soo doortay Ijaara ee Safiya Cabdi, guddoomiyihii hore ee ururka ONLF Admiral Maxamed Umar iyo waliba guddoomiyaha haatan Maxamed Maadi, fanaaniin, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. xubno magac miisaan iyo milgaba ku leh jamhadda oo meesha ka hadlay ayaa ku dheeraaday heerarka kala duwan ee jamhadda ay soo martay, waxayna si isku mid ah hoosta uga xariiqeen in aynan cid ka hor istaagi karin hadafkooda iyo xuquuqda ka maqan bulshada deegaanka Soomaalida. xildhibaan Yusuf Xasan ayaa marti sharafta goobta isugu timid soo dhaweeyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa meesha ka jeediyay. mar kale waan idin salaamay anigoo magaca ku hadlaya xildhibaanka Kamakunji. waxaan doonayaa inaan mar kale u tahniyadeeyo una hambaleeyo iyo jabhadda ONLF sanad guuradeedii 37aad. waxaan aad iyo aad u jeclahay in aan aqoonsano joogitaanka maanta uu nala joogo halkan Admiral Maxamed Umar, waa geesi Soomaaliyeed, jabhaddana ilaa iyo meeshan ay maanta joogto keenay. marka taariikhda halganka ummadan baalkeed meel baad ka galaysaa oo weligaa waa lagu xusayaa, taariikhda kuma iloobayso. waxaa kaleetoon doonayaa inaan u tahniyadeeyo guddoomiyaha cusub. waa markii ugu horreeyay uuna soo maro isagoo guddoomiyaha walaalkan Cabdiraxmaan Maadi. waxaan ku leeyahay kaltankii ugu dambeeyay ugu adkaada iminka haysaa. ilaahay ha kuu sahlo hawshaasi kuna guulayso. walaashay Safiya lahayd jabhaddan markii la aasaasay annagu carruur baan ahay, anigu nin weyn baan ahay oo waan taagnaa. manifestadeedaan qayb ka qoray jabhaddan markii la bilaabay 1984. maantana waan u soo joogaa. midda kalena waxaan xusuusnahay annagoo dadka ka tirsan jabhaddaasoo sida tuugadoo kaleeta loo qariyo oo aad moodayso inay niman dad argagixiso ah. maantana waad aragtaa inaad si xornimo ah oo madax bannaanida halkan u joogtaan oo aanad marti halkan ku ahayn. marka waxaan idin rajaynayaa guul iyo horumar. waxaana leeyahay ilaahay ha idinla garab galo hawshaasi culusood haysataan. waxaanan intaasi ku leeyahay kuna soo dhowaada, midnimadiinna iyo wadajirkiinna ilaaliya, wanaaggiinna iyo horsocodkiinnana ilaaliya. halganku maalin iyo dharaar laguma dhammeeyo. 7 sano soo socday kanoo ONLF, intaasoo sanoo ka sii horraysay halgamadii horeeto. halganka maalin meel buu joogaa, moogtahay. marka meeshan uu maanta joogo ka sii qaada, xoojiya, idinkoo wada jiro israacsanna guulaysta oo ka adkaada cadowga idinka soo horjeeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Maadi oo goobta ka hadlay ayaa khudbadiisa waxaa ka mid ahaa: Allahu Akbar. Soomaalida ogaada ya xaroodo, hamidoodo, haysaado, ummadda Soomaalida bilaan hamidoodo, gumaysiga Allah ka saaro, idinkuna guulaysa. waxaa farxad weyniyaa maanta inaan ka soo qayb galo xafladan ballaaran loogu dabaaldegayo 37 guuradii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya. waxaa kaloo farxadiya inay nala joogaan ka sokow Soomaalida ogaadeeya iyo Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya guud ahaan. oo ahaa xildhibaano aad u qiimo badan oo ka kala socda dhammaan dalalka geeska Afrika. qaar ka yimid ogaadeeya, qaar ka yimid Soomaaliya iyo qaar Kenya jooga. runtii waxay muujinaysaa taariikh cusub ummadda Soomaalida soo hoyatay oo ah in darbiye badan oo xirnaa ay baaba'een. ummadda Soomaaliya meel ay joogtaba ay danaheeda wadato. intaa markaan ka gudbo, heestii hadda u dambaysan ku halqabsanay geesiyadii Jooxa ee Agoosto weli way nool yihiin. kuwa dhintay boqolaalka kuna shahiiday dhiigoodii ma lumin weli.
وتاجي هاي كوادي كلا ولا تاجي هالكن قبلها ولا فرتها يويلش الجسيدة حقوق ولي ما هي ما يلوبين وحنا مدير ماشي تاجيين صار له صعوتان جماعة ودني حرين توقعدية وحالا أساسي كوني سجال بقول يا فرتي لكن هل كان ما كم يبلغي هل كان صوتي تتواصل معها هل كان يحب هذا ما عندكم من الخصوص سقي حرر إلا ما تنموس أو نسعد أنا إلا شعب السماء هذا يا حق هذا الشو يا هذا إلا يا شو وسعد أنا أنت أمريكا كجدبه جوحة وحاس أساسي وصلقوا ururka dhalinyarada gobonimodoonka Soomaali galbeed ururka haweenka Soomaali galbeed ururkii nafta horeyaasha Soomaali galbeed iyo ururka culimada Soomaali galbeed intaasoo ay isu tagtay iyo golihii dhexe ee WSLF ayaa isu yimado 84 asaasay jooxo waxay ka dhalatay dambaskii iyo dabkii shucuurtii halgamadii ka horeeyay أكيد سبب WSLFها كي كوري جيشها نصر الله أسوأل يكون كوري تاريخ الله يلونتي مركا هالكن معها شرعي ده شيء ما أنت ده شيء وهالكن خطأ دروية وهالكن بقول سنة سعودية ومتى الصومالية مالي جوكت بهالكن كوري كذا شيء والناس اللي بيقولوا تاجن تاي وكفر حسن هاي وحالد الناس السورية جوحة وحاول دغتي لما قلب كو يا شعب الصوماليين كنا الصومالي قلبه غنية إنه قاعد يسكوا قبصهم وغلب ذكرواتها إن المردم بعد كراو تالين أو تهالك عندك كويسان ولنا تيم يجعو تالين تاين صار له صعوتان ويجي هوري كنت قفلين تجمعات وطني حالين تغادية وحقوق قبصة الشير خيارات صورة وحالين إثيوبيا فريتو فريدو ويوي تاغنتاي حقيقة هي كتشيك كمان لابنا إنه سي استراتيجية وحانو دورنا إن قرية كبتا القلن قال كينا ووضعنا تامعنا هذو معها إن أولت إذا المنتي إن ولي وانجرنا ولي جوحا ويجرتا صومالي دو قال إيه ولي ويجرتا حق هذا العد ما حقيقة كنت ميجرتو ما أنت هالك النيروبنا فرين كلا أيام فرينا أنه سي استراتيجية نبتقليه وقاضناي وحانا مسلناهي قومية جيسك أفريقيا إنه نبت كوضا نوالادان إنه وظهر مران إنه سنادان إنه حقوض وظهران ديمقراطية زي كجيت جيسك أفريقيا تا معنى هذا وحاوية حتى الصومالي دو قادة يانهاي وحانهاي كي ستيك هولر سياسة جيسك أفريقيا سياسة إثيوبيا وحانهاي قومية أقول الوين إثيوبيا waxaan leenahay wansaado Itoobiya Soomaaliya askari waxaan leenahay shidaalka la hubo iyo gaaska la hubo geeska Afrika ka soo baxay horeeyay walaadayay ku yeelaan ilaa waxa ka qodan boqolaal malaayiin bilyan trillions gas ayaa la proof gareeyay banaanka yaala dadka ugu hanti badan ma ay ugu barwaaqo badan marka siyaasadda geeska Afrika waxaan nahay la خلينا وجدتها أو ستيكي ستيكهولرز شعوب تجهز كافريقيا كنا قومية بدل ما كنا قومية عصور إن الله بس تحضرنا الموجي وعمل كم يجري أنا الكيوان جوتيني تام على هذا معين العصرنا معها إن بتشعل تجهز عن الله معها لكن سي استراتيجية وعمل فلاني سنة بتكليها شعوب كافريقيا إنك وضعنا لاتو هذا مركز سوميسو وإلا ترتنتو آسيا يوروب يا أمريكا يقارنها كله كفر أمريكا تاسع نوار النظام في كوجيتو ولينا وين تاجرناهي تقالد إثيوبيا ما أنت كصعبة جوحة وعيتنا النبو وحكوم بغينا إن بتكلم وحليه ما لو بقيس كافر السوق كانوا حكوم بغينا سنة بتكلم وضن ولا هذا بتكلم وحليه أنا وحقيقة كمان تنازل إنه وأنا تاجرناهي نبضنا وين بيرجع لنا لكن معنيه ما إن أول دي لهين ما أنت كحق بدنا هاي ما أنت كم بديسنا هاي سومالي حتى هاي حقنا عندنا حق ركبته ولي هو حنا مسنا هاي أنا وين أنا ليدي فوز ما تجلس كافر ليدي فوز إثيوبيا أنا هاي قومي هذا هو وين على السنة يوم مستقبل إثيوبيا شاب كمان تونا وسومالي هذا وجوه حوي مركب كنت هذا
إن عالم كان تاجي استعان كون مقليسن الكسر كون كوار علينا يوم أن صار صعوتان وحا متهدى لقى جواري توم مع الموت صدح بحور الصومالي عيال وقوع على فعيسه بل كأنه حليه أود عيدا أود دقالي أود ضد marka ina ka wada dhaqano waa laga maarmaan weey wiilasheena maanta tasir fadhiya laguma qowrici karo qaarkana la faciise garbaciise waxaa la aqbalayna ma garbaciise in Soomaali lagu qowraco annaguna aan tasir difaacayno waxaa la aqbalayna ma wiilashayada qoriga wata marka hore waa inay difaacaan xadka city waa inay difaacaan xadadka taabsan ilaa laga soo gaaro xadka Kenya كامل كي دفاعان كتب على فكر كلام معكم تركنا مركعات بنوقت قلنا أروح سيد الوقا ورعي لفعيسة قرب عيسى الوقا ورعي وحن لنا هاي أنه إن التقال القومي ذا إثيوبيا قالنا التقال مولنا عفر وحن علينا تضمر عليها هنا وسكتين هاي اسكت أخذنا هاي كل شيء تعوضنا هاي وحن كوبا غينا لمدنا عبينا إنه بتكلك وضنا ولا وحن لنا هاي قال التقال وحكم فايدة sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dagaalada ka socda waqooyiga Itoobiya nabadgelyaha lagu xalliyo qowmiyadaha isku haya iyo shucuubta isku haya Itoobiya guud ahaan qolo wax ka dheefaysa ma aha dagaal sokeeye waxaad arkaysaan qolo walba dhib baa gaaraya dagaal waxaa ku dhinta geesiyaal gabdhihii wiilalaba waxba kuma faa'iido waan soo taabanay waan ognahay sababtaan dagaalka u diidanahay waxaa weeye mirihiisaan ognahay dhibaatada dadka gaadhisaan ognahay marka waxaan leenahay dagaal ha lagu hala joojiyo dagaalka annagu Soomaali haddaan nahay dagaal ma qaadayno waayo hanbaan nahay 100 sano ayaana leeyahay dad Soomaali leeyahay 100 sano ayaa shacabka Itoobiya suu kana tageen qolaana lay ma jirto amxaarana laysay Itoobiya ciidanka oo socdana laaye 100,000 baa ku aasan 20 sano dambe Soomaali lagu laayay marka hamada soo aasta dagaal ma direen annaga raali kama noqonayno maamulka Soomaaliya waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed bay matalaan ma aqbalayno in dadka iyaga hambada dagaal labaad la geliyo annagu waxaan leenahay nabad ha lagu wada noolaado waxaan leenahay ciddi deegaankeena noogu timaado waa iska difaacayna cid walba ha noqoto qol kasta ha noqoto ma aqbalayno laakiin annagu ma duulayno sababtaan u duulayno waa maxay 200 sano ka hor qowmiyada Itoobiya waan wada sinnayn ولا علماء نقبلين ولا محارة نقبلين ولا قومية كانوا نقبلين ما أنت لو حنا قومية تصدحات بناي دقال بيتنا نقصورين دقال بينو حزقنا ما أقبلين ما كنت شيء وين شيء كل تان ما أقبلين وحلنا هاي صومالي هتانا هاي نبت بندونينا نبتنا هلا حرمية هدينا ضوي ماذا صومالي بنا ولا نيقنا صومالي ولا يقنا نيجي دقال صوتهم تلو كده فيها وحبا كده في مايو لكن ما دام دقالك أن نغنو جالس يقول دقالك كم عرضه فريق دقالك كم عرضه فريق دقالك جال جالس يقول أمتنا ما حسوقه هاتو دقالة من الشرف كنت دقالة ما هاتو دمانين صابوا ودتا صومالي وجالسي واللي وحيد جالس كافريكا نيجي جعل ينك النعبة وقالوا سوكم تفرعوا هذا تاريخ هذا واللي يقال ما كنت دقالك عفصل مني لكن وحن قدرنا أفريكا النمذا wadanoolashada iyo waxaan qadarinaynaa qiimaha nabaddu ay leedahay marka waxay mar kale ku baaqaysaa shucuubta geeska Afrika khaasatan Itoobiya dagaalka ha la joojiyo ha la wada hadlo waxaa Itoobiya waa dal baa la leeyahay dalka la leeyahay hadda ha la wada yeesho hadda la wada leeyahay faraha la iska qaado qolaba dal bay degan tahay Soomaali dal bay degan tahay Oromo dal bay degan tahay Amxaara dal bay degan Tigray dal buu degan yahay shucuubta Afrika dal bay degan yihiin أما وحى أن لنا وسمعنا قيسنا هذيك الفرح على سيقال مننا بعد المجيء وحكذا هاي مرة وإذا مات تاريخ خريكه إلى ما تناسب الجوجا وده ما هذا وقتي لازم يسجري وقتي قال كومر تقولين جت وده ما هذا ديمقراطية باجيتا ديمقراطية المرة هذا نبض المرة هذا ذلك ما أنت عن جوجنو أو تذكروا يتكلم بمخاطوها وذلك جالس كافر أوبر وقبل كينيا وهذاك قلنا بدقليه بدن maxaa keenay waa la isxurmeeyay dimuqraadiyad baa ka jirta codkaas haluu kala baxo wadamada kale Soomaaliya ku kala baxdo Itoobiya ku kala baxdo kuwa kale ku kala baxaan
laakiin qoloqolo kuma mastoolaya sameeya jirtaa jooxo waxay u taagan tahay xaqa soomaalida inay difaacdo shacabkeeda difaacdo wayna difaacaysaa qalin bay ku difaacaysaa haddii loo bahdana potentialitigeeda waa haysataa geesiyadii agoos way nool yihiin annagu hadda nabad baan ku baaqaynaa adduunka oo idin waxaa weeye labadii maalmood awoodda jooxo waa la wada arkayay soo ma ahayn laga soo bilaabo Alaska ilaa New Zealand calanka nadalkiisa uu ka babanay labadii maalmood dambaysay jooxa loo dabaaldegayay awoodda shacabka gacantiisa midig way muuqataa awooddaas ayadaa marka waa inaan ficil bedelno waa inaan midowno waa inaan wax wada qabsanno marar badan halganku turo badan buu leeyahay dadku hadday wax ka dhaxayo waa isqabsanayaan waa iskhilaafayaan laakiin macnaheedu maaha in midnimada jooxa meel looga dhacay maaha jooxa waa mid weeye waa walaalo weeye waxaada way xallisanaysaa wayna xallisan doontaa waxaan idiin sheegaynaa geeska afrika soomaali haddaan nahay maanta waxaa weeyaan waa maalin taariikhi ah oo aan leenahay inaan fursadda ka faa'iidsanno walaalaha soomaaliya waxaan leenahay dowladdiinii qiimaha badda dib u soo dhista walaalooba heshiiya dib muxuu ahaa wanaaggiina u soo abuura shucuubta geeska afrikaan walaalaha nahay kulli walaalana haddii adduunku rogmado miyay kala go-ayaan dalkan soomaaliya kenya kama go-ayso kenya soomaaliya kama go-ayso etoobiya soomaaliya kenya wasaas bay ugu oleysaa shucuubtana wada noolaanayaan marka aan baranno sidii ilbaxnimada lahayd ay yurub iyo ameerika iyo aasiya ay dagaalka timaadisa ka dhigeen ay horumar u sameeyeen afrika guud ahaan way tugsanaysaa afrika maxaa dib u dhigay waa jahliga waa dagaalka waa khilaafka waa dictatoriyadda hadda intaa ka baxda afrika waa qaaradda adduunka ugu barwaaqo badan weeye calamada yeerar kale waa samaysanay faa'iido ma laha waa la dhigay marka insha allahu annagu soomaaliya haddaan nahay horseed annaga afrika midnimada horseedi doonna weliba jooxa haddaan nahay pan africanis baan nahay waanu horseedi doonnaa insha allahu weliba waan hogaamin doonnaa annaga hogaamin doonna soomaalida hogaamin doonta shucuubta geeska afrika hogaamin doonta hadda koonfur afrika waxay samaysatay isbahaysi ballaaran horumar bay samaynaysaa west africa saasoo kale weye north africa way fiican tahay horn of africa east african waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda inay noqdaan kaalintooda ka soo baxaan oo marka dambe afrika isu imaatinkooda ay ka qayb galaan waxaan ku soo ururinay hadalkayga waxaa weeyaan wakti waxaa la marayaa kala guura wakti xasaasi ah halgankii aan bilownay kuma dhammaan heshiiska etoobiya aan la galnay wuu socdaa qalin buu isu bedelay waxaa loo baahaya midnimadiisa soo celisaan midnimada soo celisaan dadaalkiina badisaan dadka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa shirweyne tashi qaran shirweynahaas wuxuu u baahan yahay dhaqaale wuxuu u baahan yahay aqli aqoonyahanka soomaaliya meelu joogo muxuu ahaa xildhibaanada soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ha nagala qayb galaan si soomaaliya u yeelata hal ajenda shucuubta kale kulli waa saas weeye etoobiyaanka kale kulli waa wada midoobeen hal ajenday leedahay maxaaradu ajenday leedahay oromadu ajenday leedahay soomaali haddaan nahayn waan hal ajenda aan yeelano oo aan midoobno oo waxaa soo socda boqolka sano soo socda usii tashanna maanta insha allahu saasaan yeelaynaa jooxana waxaan idiin sheegaynaa waxay aaminsaneed kama leexan heshiiskaan galle macnihiisu mahaynan aya ka tashi shacabkeeda ka leexanay waan sii xoojinaynaa waan usii taagannahay saasa kula noogu cadyahay maantana waxaan idiin sheegayaa inaan annagu aad u faraxsan nahay halka odayaashii baan nahay intaasoo dhallinyaraa oo saa u taagan ayaa qadiyadda u taagan miyay baaba'aysaa ma baaba'ayso geesiyadaago si gabdhii wiilaanu sama joogaan way taagan yihiin way soo jeedaan ma hurdaan xaqoodana ma leexin karo marka biidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa isbeddel weyn oo geeska afrika soo socda inaan ka noqonno kuwa mayal hadduusan dheerin laba dheer guulaysa allahu akbar soomaaliya israacdo ha midowdo jooxa ha noolaato dadka walaalaha geeska afrika nabad iyo barwaaqo iyo horumara sameeyaan dowladda kenyana mahad gaaran u haynaa heshiiskaana bay ka qangashay lacag bay ku bixisay inay soomaalida ogaada ay nabad gaasho inay shacabkeenna si xoolo ugu noolaadaan kenya oo qaxootigeenna lagu sharfo waan uga mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa in maanta si xoola magaalada nairobi ansaan ugu shirayno waxaa keenaya hogaaminta kenya ee ka kooban qowmiyadaha kale khaasatan waxaan usii mahad celinaynaa madaxweynaha kenya iyo madaxdeena sharaf kale maanta na garab taagan ee halka nala joogta ee muxuu ahaa xildhibaanada ah iyo muxuu ahaa dadka badan oo kale iyo mas-uuliyiinta badan oo kala duwan ama amni ha noqdaan ama ha noqdaan shaqaale ha noqdaan ama ha noqdaan xildhibaano ama ha noqdaan waad dhammaan nagala soo qayb galay
waxay muujinaysaa kalgacaalkii sharaftaga loo haya annaguna intaas kale idiin haynaa إن شاء الله بإذن الله كريم علاقات كلمة وكسي حوغي سلطان وكفي عنان دونا قوليسا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله إذن قوليسا guddoomiyihii hore ee jamhadda mineraal maxamed ayaa isna goobta ka hadlay hadalladiisa waxaa ka mid ahaa aad iyo aad baan u mahadnaqayaa sida geesinimada xushmadda leh sida kartida leh sida mataqaana isku kalsoonaanta leh ee maanta ay xafladan mataqaana u masinayaan aad iyo aad baan u faraxsanahay warbaahinta iyo shacbiga iyo dareenka dadweynaha iyaga aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaad muujinaysaa ama dareenka maanta halkan u muujinaya 37 sano ka bacdi maanta habka aynu u dhaqmaynayno aad iyo aada u fiican waxa dareen fiican oo wanaagsan oo gobonnimo leh oo isku kalsoonaan leh ayaynu maanta mataqaanaa ku dhaqmaynaa wax yar baa inoo hadhay waxaa yarra waxay dheelmanaysaa midnimada iyo wadajirka ummadeenna yaynu wixii inoo dhiman ku dhammaystiraynaa ummadeenna iyo ummadkeenna inuu mid yahay oo wada jiro oo wada yani ujeeddo u leeyahay ujeeddadeedna inay tahay dalkeenna inaynu ka xorayno gumaysi inaynu ka xorayno ujeeddadeennu waa taas taana waxaa lagu gaari karahayaa midnibaa lagu gaari karahayaa midniba iyo wadajir baa lagu gaari karahayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa siyaasiyiinta dalka aad baan ugu mahadnaqayaa shacbiga iyaga dareenka wanaagsan shacbiga iyaga gobonnimada yani ku dhegan shacbiga iyaga yani uu soo kicinayo dareenkii gobonnimada kuu soo kicinayo uu soo kicinayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ma jirto marxalad kale ama dad kale oo aynu sidaa ugu soo bixi lahayn warbaahinteena iyo ummad kale oo sida ugu soo bixi lahayn ma jiro oo aan ahayn gobonnimo doonka iyo maalintaa gobonnimo doonka aad iyo aad baad u mahadsantihiin adeeniya xorowdo adeeniya xorowdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha midowdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan safiya ayaa iyadana munaasabadda ka hadashay hadalladeedii ayaa waxaa ka mid ahaa sida tan markaan salaanta ka baxo waxaan rabaa inaan horta ilaahay u barino ummad badan baa dhiigooda u daatay ummad badan baa dhimatay ilaahay ha u wada naxariisto intii dhimatay ilaahay ha u wada naxariisto intii soo dagaashay oo 37 sannadood ciyaar maaha waa arrin taariikh leh waa arrin dheer waa arrin Soomaalidu waxay tiraahdaa dhagaxna meel dhow dhegna meel dheer anaka oo ALF marka maqlaynay ilmo yar baan ahayn maantana waxay noqotay inaan ka soo qayb galno dabaaldegeeda waa ilaahay mahadiis marka aan ta ka baxo waxaan rabaa inaan dhaho maanta waa maalin aad iyo aad u muhiim ah muhiimadaasna waxaan leenahay inaan maanta Soomaali meesha joogtidba inaan mid la wada noqdaa muhiim ah inaan codkoo wada yeelano inaan isla wada istaagno inaan mid walba ficil yeelano walaalkeen u ficiloono meeshuu taagan yahayba ficilka asaga ah inaan la garqabno walaalaheen oo u sameeyno marka waxaan rabaa inaan rabo ugaadeniya ha xoroodo Soomaali ha xoroodo Soomaali ha israacdo Soomaali ha midowdo insha Allah billahi kariim anaka waxaan jecelnahay aad iyo aad meel kasta joogtaanba wanaaga Soomaalida aad u jecelnahay haddaan nahay dad reer Kenya ah marka maqalno Soomaali meesha joogaanba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka haddana waa inii hambalyeynayna hambalyo ugaadeniya hambalyo xildhibaanka laga soo doorta Wajeer South Maxamed Cumar ayaa isna goobta khudbad ka jeediyay khudbadiisa ayaa waxaa ka mid ahaa assalaamu calaykum aad baan idiin salaamay fursad qaali ah weeye maanta runtii aad iyo aad muhiim u ah inaan runtii soo istaagno ka soo qayb galno munaasabadan 37 sanad guurada halganka ONLF
farxad la soo gingimay la soo diyaariyey runtii aanu isugu nimid oo farxad siyaadaha inoo keentay in lagu qabto halkan anigoo farxadda iyada ah u soo istaagay halkan waxaan leeyahay guulaysta guulaysta oo guulaysta waxaan leeyahay fursadda muhiimka noo ah waa ismaqalka bulshada isdhagaysiga xagga halganka iyo horu socodka iyo howlqabadka iyo dawlad dhiska iyo dadaalka iyo dalka iyo dadkaba loo dadaalay waxaan aad iyo aad runtii aan rabaa inaan idhaahdo nin walba qalbiga ha ku hayo inta dhiiggooda uu daatay inta dhimatay inta agoontooday inta halganka intaa u taagnayd waa la wada xusayaa nin walbana wakhti buu geliyey oo maanta halka taagan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa admiral maxamed iyo guddoomiyaha ayagoo hoggaanka hayay oo runtii u hayay qadiyaddan doonayay dadaal iyo horumar iyo nabad bashbash iyo baraari iyo barwaaqo inay bulshadoodii u keenaan taa un filayo guushii inay soo dhowaatay oo runtii harkii la harsan lahaa ay maanta diyaar aanu ugu dhownahay inaannu geli doonno waxaan doonayaa bulshada nabad iyo nabad iyo nabad iyo nabad ayaan farayaa mar walbo waxaan doonayaa horu socodka isaga la socon lahaa inuu noqdo mid garab laysaga yahay walaaltinimo iyo runtii hal yacnaha mustaqbal la wada raadsanayo marka waxaan leeyahay soo dhowaada aad baad u mahadsantihiin fursad qaalib ayay ahayd anigoo halka joogo inaan runtii soo istaago martiqaadkan aad igu martiqaadeen aan u imid inaan ka soo qayb galo xildhibaan yuusuf xasanna wuu mahadsan yahay oo aan runtii ninka aan maanta aan magaaladiisii joogno oo runtii oo ka soo qayb galay isagoo safar ka yimid ka soo baxay Mombasa inuu hawshan munaasabadan u imaado lagu martiqaaday isagana runtii magaaladiisii ay tahay marka aad buu mahadsan yahay xildhibaankii isagana shukran aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin shukran 15 August 1984 ayaa Jamhadda Xoreynta Ogaadeniya ONLF waxaa lagu aasaasay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxay maanta ugu dabaaldegayaan magaalada Nairobi sanad guuradii 37 ma ahan markii ugu horeysay oo saan camal ay dabaaldeg noocan isugu soo baxaan dadka reer Ogaadeniya. Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar, Bowles Media, Nairobi.